Wiil dhalinyaro ah oo faqiir ah ayaa waxaa laga soo buriyay shaqadii yareed uu ka shaqaysanayay. Magaaladii waa uu isaga soo tegay, magaalo kale ayuu yimaaday. Waxa uuna ka raadsaday magaaladii shaqo. Maalintii koowaad waa uu ka waayay shaqo. Waxa uuna u baahday wax uu cuno. Waxuuna weydiistay nin taajir ah oo uu wadada ku arkay. Waxuuna ku yiri walaal waxaan cunayaan u baahanahay ee lacag wax isii. Ninkii taajirka ayaa ugu jawaabay orod idhaaf, ma jecel dadka faqiiriinta sidaadoo kaleeta ah. Aad ayaan uga xumaaday arrintaas uu ninkaas sameeyay. Ilaahay ayaana tuugay inuu i garab istaago. Waxaana ballan ku qaaday inaan qof dambeeto wax weydiisanin. Habeenkii markii la gaaray meel aan seexday waan waayay, waxaana seexday meesha qashin qubka ah. Anigoo iska jiifa, nin ayaa i tuusiyay. Wuxuuna yiri ma rabtaa cunto mideeda ugu macaan inaad cunto, ma rabtaa inaad seexato meel aad seexday meesha ugu fiican. Waan yara farxay, waan soo raacnay ninkii. Wuxuuna i keenay guri meesha u dhawaa oo qasri ahaa. Gurigii waxaa la dhex joogo ninkii taajirka ahaa ee aan shalay wadada isku arkaynay ama saaka. Wuxuuna igu yiri musqusha gal soo qabayso, dhar qurux badan soo xiro. Sidii ayaan sameeyay. Markii aan ka soo baxay ayaa ninkii u imaaday. Wuxuuna igu yiri waxaan furay xaaskayga, weliba waxaan ku furay 3 dalqo. Waxaana loo baahan yahay shaqsi guursado. Markii uu soo furana aniga ayaa markale guursanayo. Aniga waxaa ii caddaa cunto iyo raaxadaas oo keliya ima caddeen. Guurkaani waana hore ayaan ku galaaday. Waxaan ilisiiyey ama aan galay qol aad u qurux badnaa, dhex taalana cunto. Ilaahay ayaana ku xamdiyey kuna mahadiyey. Qolkii waxaa ii soo gashay gabar aad u qurux badneed. Waxayna iga codsatay in aanan furin sababtoo ah waxay tiri ninkay qabo waa nin ninkii horeeto ma ahayn qof fiican, Ilaahay waxa ka uu cabsada. ahaa xun oo na Mar kibir badan. walba sidaan ayuu ii furaa. Nin maskiin oo sidoo kale ayuu soo wacaa. Asagoo lacag u baahan lacagta uu siiyaa. Way guursadaan Soo dad hore ayay furaynaa. furaan. Waxaa kaa codsanayaa inaadan i furin. Waxaadna ogaataa markan dhan aniga ayaa iska leh. Asaga ma lahan. Haddii ay aniga guursato oo toos ii qabto, lacagta oo dhan adiga ayaa la wareegaysid. Waan ka ogolaaday arrintii, waana isku raacnay. Subaxdii markii la gaaray ninkii taajirka ayaa ii yimid. Wuxuuna igu yiri xilligii waa la gaaray ee fur gabadha. Waxaan ku yiri orod meesha isaga tag inta aanan ku wicin shaqaalaha. Orod iska bax, haddii kaleeto iridda ayaan darbe kaaga tuurayaa. Ninkii asagoo hoos fiirinaya ayuu iska baxay. Waxaana ku yiri miyaadan xasuusan xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee ahaa لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر